I want a job, brother. Like, No. why? What the fuck? Go. 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 Get. The Thailand massage. Thailand massage. Yeah. Waxaan soo Are you galnay. understand? Yeah, yeah, yeah. Okay. Waxaa la yidhaha meeshaan Thailand massage. Your mom. For your mom. For my mom. Your mom. Maamada shaqada weydiisanayo waaye. Waxay siisay hadiyad. Waxay dhahday kan hooyada u gee, kanna kaamiramanka siisay. No allowed. So ninkan uu ii diiday. Wuxuu dhahay u dhahay. Waa gaal caadi. Yar Soomaali waaye. Malaysia ma laga shaqaysan karaa. Muuqaalkana ku ogaanaysaa. Dhammaan goobo kala duwan oo ganacsi aan tagi doonaa. Waxaana ka codsan doonaa inay shaqo i siiyaan, ay shaqaaleysiiyaan. Ma iga aqbali doonaan, maxay igu xujeen doonaan. Goobo kala duwan hadday noqoto inay timajaro, makhaayad, suuq oo dharka lagu gado, meel dhakhtar, meel kastaan tagi doonaa. Muuqaalkana waxaa ku ogaanaysaa inuu qof foreigner mise qof oo waddankan u dhalanin uu ka shaqayn karo. Marka muuqaalkeena hadda bilaabeynaa, let's go. Waxaan soo gaaray dukaan ka mid ah dukaamada ugu caansan Asia. Malaysia ma aha Asia. Dhan marka 7-Eleven la dhahaa ayakana shaqaan weydiisan doonaa. Haddaan gudaha u galayaa saan ii sheegay waay maanta meel kasta oo Malaysia ku taalo aan weydiisan doonaa shaqo ilaa laga siiyo. Let's go gudahana geliya. Can you offer me a job? No, Why? because we don't take a foreigner here. Oh, you don't take foreigners. Yeah, if you want, you need to have a contract from your country to the 7 in Malaysia. Oh, for me to work here I have to have what? A contract. A contract. Okay, thank you. Yeah. So qofta meeshan waxaa la dhahay haddaad rabtid inaad ka shaqaysid inaad ka haysatid waa sharci waddankaaga oo lagaa soo ogolaado. Iska shaqayn kartid. I will work with you here. I asked my husband first, okay? Oh, you ask your husband if he says no, yes, you give me. Business? Yeah, if he says, if your husband say yes, you will give me. Job? Yeah, here. Okay. Naagtan dukaankaas oo qurxan maasha Allah ayada iskale waxay waa naag fiican waxay dhahday haduu ninkeyga husbandkeyga ii yeelo oo ku siin doonaa. Thank you. Yeah. I appreciate. What's your name? Huma. Huma. Amjad. Okay, masha Allah. What's your shop name? Shop name? The long one. Oh, Yeah. okay, okay. The part of long one. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Assalamu alaikum. Somalia. Somalia. Yeah. Oh. You know Somalia? Yeah, Somalia. I know. You from Pakistan? Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Yeah, thank you so much. All right, nice to meet you. Yeah. To meet you too. Okay, bye. I qoftan qof fiican ay ahayd مثلا. Yes. Your mom. For your mom. For my mom. Your mom. Well, Gift. Yeah, gift. thank for you so your- much. I appreciate it. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. Come talk to the camera. 1 minute, 1 minute. maamada shaqada weydiisanayo waaye. Waxay siisay hadiyad. Waxay dhahday kan hooyada u gee, kanna kaamiramanka siisay. Thank you so much. Yeah. I appreciate. Waa naag zaid u fiican. Marka hooy kana ku soo wadaa hadiyad waxay maamadaas ku soo dhiibtay. Waxay dhahday wiilkaaga camal waaye. Marka hadiyadan si shaqo bisan weydiistay. Shaqada waxay dhahday ninkay. It's for mom. Yeah, say assalamu alaikum. Okay, what? Mama, Assalamu alaikum. her name is Fartun. Say assalamu alaikum Fartun. Assalamu alaikum. Fartun. Fartun. Yeah. Okay. Okay, and hooyo alaabtan ku soo wadaa. Wili waxaan wataa hadiyada ay siisay maamada. Waxaan soo gaaray meel dhakhtarkana gudaha gali doona. Dadka waxaan ka dhaadhicinaa inaan soo bartay ilkaha iyo balaayad si loo xiro. Caafimaad inaan soo bartaa iska dhiga. Gudahan galaa waxa weydiisanaa inay shaqaysiiyaan. Meel kastaan galaa maanta. Let's go gudaha soo gal. You're the boss here? You are the boss here? No, Who's the boss? boss not here. Can I work here? Can you offer me a job? Don't have job. I'm a professional doctor from Somalia. Yeah, no, I don't have job. You don't have job? Why? Already full. Already full. Yeah. But if I get a space, maybe I will work here. No, already woman, not man. No man, Woman. only woman. Yes. Maybe I can do cleaning. No, it's okay. Okay, nice to meet you. Waxaan dhahay waxaan ku xaqaa dhulka waalidii. Balanteenu waa shaqo, balanteenu waa shaqo. Shaqo. Dukaan kala soo gaaray. Dukaankan khudaar iyo waxaas lagu gadaa. Nina gudaha ku jiro. Waan weydiisan doonaa inaan la shaqeeyo. Yes, brother. You work here? You are the boss? Where is the boss? Huh? Where is the boss, brother? Boss, line kadai. Line kara. You speak English? No. Okay. Can I work with you?
You offering job? No. No. I want to work with you in the shop. This shop? Yeah. No. Why? No foreigners? Ninkan kaamiradu ka cabsanayaa guys wuxuu taagan yahay no soo xirxiran fahad so waan iskaga tegi doonaa marka. Are you offering job here? I want to work with you guys. Yes. I can work with you. Huh? I can work with you here. Yeah. Of course. I'm welcome. You welcome me. Yes. And no requirement. No. Shaqaa hela guys. Wax mali wax jeesanaay. So you sure? Migu dhadheeloyaa. Bro, are you serious about it? I want to start now. I will change. No, it's a joke, bro. Is it joke, brother? So I'm not working here. Ninka igu dhadheelaa iga farxiye. So why? Why? No foreigners allowed? Because working here only Malaysian only. Oh. So no foreigners. So dukaankan localka bis loogu talagalay foreigners ma loogu talagalay. Meelo badan oo saas ay jiraan oo dadka localka bis loogu talagalay. Marka dukaankan waan ka bixi doonaa meel kale. Wax yar waa farxi guys inaan shaqo helo maleenayo no. Ila helaysiin guys. Muuqaalkan hada ka heshay subscribe sar video aan socon doonaa ilaa ani shaqo ka helo. You speak English? A little bit. So where's your shop? This one? This one? Oh, you sell bag? Yes. So, it's nice. So I want to work here. Can I work with you? Okay, sure. I mean, like, you give me a job. Oh You no, offer we me. can't give it. We cannot give it. Why? You need to talk with my boss lah. I'm Oh, not the boss. oh, you're not the boss. Ah, Okay. If I talk to your boss, maybe I can get a job. maybe not. Maybe no. Why? I don't know. Is, You need to ask her lah. is it only for foreign and local or also foreign account? No, it's actually a family business. It's a family business. Oh. So maybe he don't want. okay, anyone? Okay. Tukan or family why? So I see family. You are a member of the family. Yes, I remember. Oh, mashallah. So xariifkan wuxuu dhahay dukaanka family askale afaar qabiil waxaas lagu soo geliyay dukaankan cididiis camal ah lama fahad. Okay, thank you yeah. Okay. Wuxuu taagan yahay family member waaye afaar qabiil aan ku joogaa marka ma helayso shaqo waligaa ma helayso dhahay meeshaan hada isku daalis booskii daalaa insha Allah marka dukaamo kala sii tagi doona inta ma ka baxnaa inta ka baxnaa. Okay, so you work here? Yeah. You are the boss here? No, I'm the worker. Oh, you're the worker. Yeah. So can you offering job? Maybe I can work with you here. I don't think so. You have to ask my boss. Or I have to, if I ask, maybe can I get job? Maybe. Is it only for locals or foreigners? You can ask first. Okay. And you sell bags and stuff. Bag, cap. Okay. So xariiftan waxay dhahday hadda booska weydiisay. You okay if I work with you? If you say if your boss say yes, you are okay. I'm okay. Qoftan way soo dhaweysay thank you yeah. Waxay dhahdaa hadduu booskay ku ogolaado waa ila shaqayn kartaa. Dadka marka dadna waxa waaye ayaga waxay dhahaan familygeyga dadna way ku soo dhaweeyay. Waxaan soo gaaray meel masaaj waa nii sheeg waxaan afinahay ma lahan ilaa aan shaqo laga siiyo. Meeshaan masaajkaan gali doonaa waxaan ka dhaadhicin doonaa inaan masaaj sameeyo. So waa iska weydiin doonaa inay shaqo siinayaan. Just leave, go eat. Okay, Yeah. you work here? Yeah. So are you offering job? I want to work with you. A massage shop. Yeah, I want to work here. I want to do massage to people. Yeah. Are you offering job? Yeah, opening. Me working here, you is okay? You want the massage? No, me want to do massage to people. You want to do massage? Yeah, Cannot because my boss not. not allowed. Yeah. Why? Maybe tomorrow you come here again. He will give me job. Maybe cannot. You want your job cannot. okay. You want a job? You just go the Bukit Bintang. Maybe you asking there. Okay, meel kale i tilmaamaysaa inta waxay dhahdeen Yeah. But what is the reason? Is it This is the Thailand massage. Thailand massage? Yeah. Waxaan soo Are you galnay. understand? Yeah. Okay. Waxaa la dhahay meeshaan Thailand Where massage. you from? Excuse me. Somalia. Somalia. Yeah. Oh, it's yes, all Thailand massage. It's Chinese Thailand massage. Waxaa Tradition. la dhahay meeshaan waa massageka Thailand massage. So you must learn it's Chinese. It's a Malaysia massage in same Muslim country.
Bester in the KLCC or Bukit Bintang, okay, like that. Okay. This Mesh- one safe zone, cannot. Yeah, meeshaan meel halis waaye. Meel muslimiin maaha Just, fahad. just a center shop, not big spa. Just Oh. business. Okay, thank you. Okay, okay. Thailand massage waaye dhahday. Meel oo muslimiin maaha. So waxaan soo gaaray garage meel baabuuraha lagu sameeyo. Weli waxaan codsanayaa shaqo ilaa aan ka helo. Ninaa gudaha ku jiro waxaan weydiin doonaa inuu shaqo i siiyo. Baabuuraha meeshaan yaalo. Marka alaabta gaariyaasha lagu waa garage caadi waana hal qol. Marka gudaha soo gala. No allowed. So ninkan uu ii diidaba. Wuxuu dhahay u dheh waaba diidaba. Marka soo bax. waa gaal caadi waxaan soo gaaray meel garage oo baabuurada lagu dhaqo ninkaana waxaan weydiin doonaa inuu shaqo i siiyo so brother excuse me you speak English Yes. and can you give me a job No job. please and I want to work with you here you allowed No. why No job. I want a job brother like No. why what the fuck No. Get out. what the fuck ninkaan maxaa ka khaldan Get out. kor waan soo koray dukaamadan ka bilaabi doonaa saacadda late waa 12 habeenimo 6 saac habeenimo waaye shaqana ilaa hadda saan subax usoo baxay ilaa hadda shaqa raadinaya qoraxda markaa soo baxay bay soo jeeda mafaad haddana 6 saac habeenimo marka dukaankaana hadda galaa kan hadda timijaro waaye timijarahanaan galaabo gudahan galaa waan weydiisanaa inay shaqo i siiyaan so haddaan gudaha galaynaa waxaan weydiinaa inaan shaqo la siiyo yar Soomaali waaye okay yar Soomaali waaye guys brother shaqo ma heli karaa shaqo ma siin kartaa inta ma kula shaqeyn karaa meeshaan booska ma joogo meeshaan aan shaqaalaha ka ahay haddii oo meeshaan iska lahaan lahaa oo fiicnaan lahayd okay adi intaa meeqa ka shaqeynaysa meeshaan adi 1 year hal sano oo kale okay meesha dhan aan soo wareegayay dad ajaanibi ahaayeen hadda finally waxaan u imaaday wiil Soomaali meeshaan timajarahan oo saan u qurux badan ku shaqeeya hal sano ku shaqeynaya so walaalka customer-kaaga badan Soomaali miyaa mise ajaanib waa alxamdulillah customer-kii Soomaali ajaanib inta way iskugu jiraan muqdisho ka imaaday timajara hore u lahaa inta ma xagga ku baratay ma timajara xaggan ku bartay dukaan xaggan ku lahaa okay xaggii inta yaa fiican shaqadeeda wallahi almost waxay ku xiran tahay customer-ka laakiin dhaqaale ahaan haddii loo inta fadhido hadda xirfadda leedahay marka ani hadda haddaan barto saan haddaan barto hadda inta ma ka shaqeyn karaa adina kula shaqeyn karaa inta xor saxo inta markaa ku imaan aan xorta imtixaan la imarsiye okay booskay ku xiran tahay ani ma aha oo ku bara hadii loo ma aragtay waxay ku fiican tahay xirfad dalka hooy inaad ku soo barto okay waqtiga qaadanay so qofkii aqaan oo dalka joogo hadduu dhaho inta imaana meeshaan ma lagu soo hadda ninkan shaqo muu ka heli karaa mise waxaa waaye way adag tahay wallahi saxo booska ku xiran tahay booska hadduu ku qanco gacanta hadduu ku qanco ku qaadana wax waaye ma u joojinayo okay waxyaalo kale oo la qabto ma jirtaa waddankan mise timajarahan mise waddankan xorta waddankan sidiisaba waxyaalo qaar la qabto way jiraan ha ahaatee dhalinyaro qaar oo lasoo qaldaya jirto oo hadirta meeshaan shaqaa taalo saan waa la dhon oo inta lagu soo qaldayo inta lasoo qaldo okay oo ahaanti meeshaan shaqa way taala laakiin liskuma ogolo shaqada taalan waxa waaye timjar iyo maqaayad badanaa Soomaalida maqaayad ka shaqeeyaan okay alaab dhaqo marka maqaayada green waxa la dhul xitaa xaq skill wax le waaye lacag la shaqeeyno saama fahant laakiin maqaayada shaqada si lagu helaa adag okay maqaayada qayb badan ay qabtaa soo qaybta ugu badan ee Soomaalida qabtaa wallahi hadda baadi dabeecadaada waa sida ownerka la dhaqanta ma aragtay sidaas waa okay guarantee miya ina shaqada marka maqaayada shaqo la huumiya oo helis no malahu hadduu alla ku qadar ma aragtay maanta haddii aad timaado bir waxa laga yaabaa macnaa nasiibkaaga hadaba nasiibkaaga laakiin waxa ku muhiimsan skills ina lahaata okay skills wadanka hooya joogta skills noocay doonta ahata baro gaar ahaan timajaro markaas ay intii markaas dan wadankaana imaana qaasaa Malaysia ya hadii aan leedahay hadii lacag adigoon haysan aad timaado goda galay hadii aan lagu maqneen oo aan lagu soo biileynin goda galay waa labada dhinac wax waa ina wax haysataa ama skills hayso ama familkaaga wax waaye
dhiiqa lugaha kugu jiraan ah ama aysan ahayn halisaa ku jirtaa okay guys muuqaalkan wax badan ka faa'iideen information iyo xog badan uu xambaarsan yahay yarkan wax badan uu sheegay wuxuu dhahay haddaa meeshaan imaadid adoo lagu maqneen ama xirfad iyo waxa ku shaqaysata lahayn way kugu adkaanaysaa inaad shaqo heshid sidoo kale dadaa imaadaan oo laga dhigay inay shaqada dhaqso helayaan so waxaas ma soconayso isku soo tasho muuqaalkan hadda ku raaxaysatay subscribe ii saara thank you so much